السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنال كيجا مركلة سود وهذا أدي هذا وما سنتي لجوجتان كنا وليبا كومنتية دي وناكسن وديري كلتنا ويديكم هذا علينا مدحوين دونالد جاي ترامب أيا مركي أقل كهوس كونغرس كأي أنصحيان قضب كحلك قادستيسا وحا وصوت دوبي مقال كدوات 5 دقيقة أها أو موقدي مدحوينا هذا الكيسو مد كبدلان هذا الذي looga bartay muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweyne Donald Trump ayaa hadalkiisu waxa uu muuqday hadal sagootin ah maadaama xilka uu ka dagayo xilka qaadistiisana ay dhinac ka socoto hadalkan ayaa waxa dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya waxay leeyihiin madaxweynaha waxa looga baahnaa habeenkii rabshadaha ay dhaceen waa maalintii 6 bishii Arbacada ahayd maadaama madaxweynaha hadalkan uu muuqday hadal inta badan taageerayaashiisa uu kula hadlayay madaxweynaha sida uu u hadlayna ay ahayd si wanaagsan laakiin waxa la leeyahay waxa loo baahnaa madaxweynuhu in hadalkan uu jeediyo maalmihii rabshadahaasi ay dhaceen ama habeenkii ay dhaceen ama maalmihii ka dambeeyay waxa la socotaan madaxweynaha habeenkii markii rabshadaha dhaceen habeenkii waxa uu soo duubay muuqaal uu taageerayaashiisa ku dhahayay waan idin jeclahay waa inaad gurihiina aadaan hadal saasa ayuu taageerayaashiisa ku yiri marka hadalkan uu caawa madaxweynaha soo daayay waxa la leeyahay waxa loo baahnaa habeenkaasi in uu ku hadlo madaxweynaha hadalkiisa hadal waxa uu muuqday inta badan dadka Mareykanka ah oo qalalaasihii ku cambaareynay dadkii dhibaatada geystay sharciga hal keeno dhahay ciidamada iyo calanka marka ayaan hala tixgeliyo dhahay hadaladiisa ayaan rabaa marka inaan soo koobo muuqaalkiisana waad arki doontaan madaxweynaha waxa uu yiri qalalaasaha iyo burburinta wax boos ah kuma lahan wadankeena isla markaana boos kuma lahan dhaqdhaqaaqeena madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu yiri in dhaqdhaqaaqa aan wadno oo ahaa magaciisu Make America Great Again markastaba waxa uu ahaa ayuu yiri mid sharciga ku dhisan wuxuu yiri waa in la taageeraa ragga iyo haweenka ku jira ciidanka wuxuu yiri qalalaasaha waxa ay ka soo horjeedaan waxa aan rumeysanahay iyo waliba dhaqdhaqaaqeena waxa uu taagan yahay madaxweynaha oo taageerayaashiisa dhowr mar la hadlay wuxuu yiri taageerahayga dhabta ah ayuu yiri marnaba ma taageero qalalaasa siyaasadeed taageerahayga dhabta ah ayuu yiri ma qadarin waayo ciidamada ammaanka sugaya iyo sidoo kale calankeena weyn taageerahayga dhabta ah ayuu yiri ma u hanjabo oo ma waxyeeleeyo ayuu yiri dadkiisa kale ee Mareykanka haddii aad waxyaabahaasi sameysay ma tihid taageerahayga iyo waliba taageeraha dhaqdhaqaaqayga waad weeraraysaa waxaad sidoo kale weeraraysaa wadankeena aan mana u dul qaadan doono ayuu madaxweynaha hadaladiisii kamid ahayd madaxweynuhu waxa uu yiri haddii aad tahay Republican ama Dimuqraadi ama dhinaca bidix ama dhinaca midig qalalaasuhu markasta marmarsiya ma lahan ayuu yiri wadankeenuna markasta waxa uu ku dhisan yahay sharciyada madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayuu yiri waxaan weydiisanayaa qof kasta oo rumaysan ajandahayga waa in uu ku fikira ayuu yiri in uu xiisada dajiyo madaxweynaha ayaa sidoo kale wuxuu yiri qof kasta oo ay taageersan waa inuu kor u qaadaa nabadda wadankeena madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale wuxuu yiri waxa ay soo gaarayay warar sheegaya in ay jiraan mudaharaadyo kale oo dheeraad ah oo ka dhacaya caasimadda DC iyo sidoo kale guud ahaan gobolada ciidamada Secret Service-ka ayaa arintaasi soo gaarsiiyay wuxuu yiri qof kasta oo Mareykan wuxuu xaq u leeyahay in codkiisa la maqlo laakiin lagu maqlo si xushmad leh isla markaana nabadi ay ku jirto waxaana ay kamid tahay yiri xuquuqda aasaasiga qalalaasaha iyo waliba in sharciga la jabiyo burburinna la sameeyo nooc kasta uu yahay waxa uu yiri waa in qof kasta oo Mareykan uu u hogaansama sharciga isla markaana uu raacaa tilmaamaha ay ciidamada ammaanku siinayaan madaxweyne Donald Trump ayaa hadaladiisa waxa uu ku soo gabagabeeyay waxaan ku amray ayuu yiri ciidamada ammaanka dhamaanba inay qaadaan tilaabooyinka laga maarmaanka ah si ay u soo celiyaan ammaanka iyo kala dambeynta caasimadda DC kumanaan kamid ah ciidamada ilaalada qaranka ayaan keenay caasimadda si ay u sugaan magaalada isla markaana ay u suura galiyaan in kala guur nabad ah uu dhaco oo iyadoo waliba wax rabshadaha aysan dhicin madaxweynuhu waxa ugu dambeyntii yiri waxaan ka naxay oo aan aad uga murugooday waxyaabihii ka dhacay caasimadda toddobaadkii la soo dhaafay taasi oo madaxweynaha aysan runka ahayn oo la og yahay hadalkii uu jeediyay saacado kadib markii rabshadahaasi ay joogsadeen oo ciidamada ammaanku ay soo gaareen Capitol Hill ugu dambeyntii madaxweynuhu waxa uu sidoo kale ka hadlay barihiisii bulshada oo laga xiray ma ahan ayuu yiri qof muwaadin ah in xuquuqdiisa asaasiga ah laga qaato ugu dambeyntiina waxa uu dadka shacabka ugu baaqay in ayadoo la mideysan yahay wadanka horay loo sii wado isagoo xaqiijiyay intaasi ay nabad u tahay qoysaskeena
communitygeenna iyo sidoo kale waddankeenna ayuu madaxweynaha hadalkiisa kusoo gabagabeeyey hadalkan marka madaxweyne Donald Trump caawa uu jeediyey dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ee Mareykanka waxay leeyihiin waxaa loo baahnaa madaxweynuhu hadalkan in uu jeediyo xilli hore hadal looga bartay madaxweynaha ma uusan ahayn waa kan hadalkii madaxweynaha oo koobnaa bal ila daawada. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. Making America great again has always been about defending the rule of law, supporting the men and women of law enforcement, and upholding our nation's most sacred traditions and values. Mob violence goes against everything I believe in and everything our movement stands for. No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. If you do any of these things, you are not supporting our movement, you are attacking it, and you are attacking our country. We cannot tolerate it. Tragically, over the course of the past year, made so difficult because of COVID-19, we have seen political violence spiral out of control. We have seen too many riots, too many mobs, too many acts of intimidation and destruction. It must stop. Whether you are on the right or on the left, a Democrat or a Republican, there is never a justification for violence. No excuses, no exceptions. America is a nation of laws. Those who engaged in the attacks last week will be brought to justice. Now I am asking everyone who has ever believed in our agenda to be thinking of ways to ease tensions, calm tempers, and help to promote peace in our country. There has been reporting that additional demonstrations are being planned in the coming days, both here in Washington and across the country. I have been briefed by the U.S. Secret Service on the potential threats. Every American deserves to have their voice heard in a respectful and peaceful way. That is your First Amendment right. But I cannot emphasize that there must be no violence, no law breaking, and no vandalism of any kind. Everyone must follow our laws and obey the instructions of law enforcement. I have directed federal agencies to use all necessary resources to maintain order. In Washington, D.C., we are bringing in thousands of National Guard members to secure the city and ensure that a transition can occur safely and without incident. Like all of you, I was shocked and deeply saddened by the calamity at the Capitol last week. I want to thank the hundreds of millions of incredible American citizens who have responded to this moment with calm, moderation, and grace. We will get through this challenge, just like we always do. I also want to say a few words about the unprecedented assault on free speech we have seen in recent days. These are tense and difficult times. The efforts to censor, cancel, and blacklist our fellow citizens are wrong and they are dangerous. What is needed now is for us to listen to one another, not to silence one another. All of us can choose by our actions to rise above the rancor and find common ground and shared purpose. Today I am calling on all Americans to overcome the passions of the moment and join together as one American people. Let us choose to move forward united for the good of our families, our communities, and our country. Thank you, God bless you, and God bless America.
madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uusan soo hadal qaadin codka aqlabiyadda ah ee aqalka hoose ee Congress-ka ay ku ansixiyeen xilka qaadistiisa iyadoo 232 xubnood ay u codeeyeen madaxweynaha in xilka laga qaado oo 10 kamida ay xisbiga Republican-ka ahaayeen oo madaxweynaha in xilka laga qaado u codeeyay iyadoo 197 xisbiga Republican-kana ay ka soo horjeesteen afarna sidoo kale ay ka aamuseen oo aysan codeynin Nancy Pelosi iyo sidoo kalena xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee maamulaya xilka qaadistan isla markaana qodobkan xilka qaadista oo horin kacdoon soo diyaariyay ayaa markii codka ay aqalka hoose ee Congress-ka ay u qaadeen xilka qaadista madaxweynaha waxa uu Nancy Pelosi ay saxiixday in qodobkaasi xilka qaadista waxaana qodobkaasi ay Nancy Pelosi ay saxiixday loo gudbin doonaa aqalka Senate-ka iyadoo su'aalo ay wariyaasha weydiiyeen aysan ka jawaabin xilliga ay aqalka Senate-ka u diri doonto in arintan xilka qaadista ama qodobkan ay saxiixday waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaad la socodsiiyo warkan ka soo yeeray madaxweyne Donald Trump waana ku mahadsantihiin la joogitaankiina aad iyo aad ayaan idinka mahad celinaya sida wanaagsan oo muuqaalada aan soo geliyo aad u daawataan isla markaana sidoo kale aad uga falcelisaan inta mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waarodin la sidaa iyo nabadgelyo